foolka fool waa barnaamij toddobaadlaha toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay garsoor dhaqameedka Soomaalida ma laga raystay mise waa loo darsaday marka la barbar dhigo marxaladaha la soo maray iyo dhibaatada bulshada ka haysata garsoor la'aanta. hab garsoor dhaqameedka Soomaalidu waxa uu salka ku hayaa xeer isugu jira hab laga soo gaar iyo shariicada Islaamka. Soomaaliduna waxay tiraahdaa xeer waa dayr iyo dallad. bulshada Soomaalida oo beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira waxay nolol maalmeedkeeda ku maareyn jirtay ka hor isticmaalku ama gumaysigu intaanu dalka imaan xeer leh gole iyo geed lagu qaado oo ka dhashay waayo aragnimada nolosha bulshada dhib iyo dheef wixii ay soo martay. sugidda xaqa iyo ku dhaqankiisu waxay kaalin muhiim ah ku leedahay xiriirka ka dhaxeeya waxa ka dhasha ficilka aadanaha iyo falceliskiisa iyadoo ay muhiim tahay in qofku ka gudbo magansiga baahida cadaaladda marka uu baahan yahay ama dhiban yahay iyadoo ay ka wanaagsan tahay xusuus joogta in loo markasta ilaalinta iyo ku dhaqankeeda. muuqaalka xaqa waxaa saldhig u ah in qof waliba garto xuquuqda dadka kale sidaa daraaddeed sida loo fikirayo iyo cadaaladda u hagaagta waxay keenaysaa aragti wanaagsan oo wadajira loo wada yeesho wadajirna loogu wada lahaado ilaalinta xuquuqda dalka oo dhanna la yeesho iyo gaaritaan cadaalad ijtimaaciya oo dadka oo dhan wada raali gelisa. meelaha garsoorka Soomaalidu daldaloolada dhaqan kaga yimaado waxaa ka mid ah lahaanshaha geela oo noloshooda qaali ku ahaa dulmi iyo ismuqoonina mararka qaarkood ay ku yeelan jireen sida ka muuqata erayadan gaal iyo islaam geelow yaa ku leh bal eega jawaabta xalaal iyo xoog haddii lagu helo midna kuma xuma kulli fidma cinda geela sidaas baa iyadana la yidhi. sidoo kale waxaa la yidhi sidii loo helay loogu hadlayo looguma heshiin. garsoorku wuxuu saameeyaa dhiig iyo dhaqan xilo iyo xoolo jiyo iyo daqar kas iyo kama bar iyo beer mooro iyo magan iyo wixii soo gaara ama lamida. gartuna waxaa la ilaalin jiray inay noqoto miday gacanta u gashaa oday iyo waayeel garmaqaato ah ama weyl waalan. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdulqaadir cusmaan maxamuud oromo loo yaqaano. cabdulqaadir kusoo dhawo barnaamijka. aadanaha waxaa lagu yaqaanaa in dhibaato ka dhex dhacdo. soomaalida maxay ku diriri jirtay markii hore bal garsoor intaynan gelinba maxay ku diriri jirtay soomaalida? bini aadamkan horta waa diriraa wuxuuna ku diriraa khayraadka iyo wixii markaas dhaqankooda. soomaalida wuxuu ku diri wax ugu badan geela iyo gabdhaha ayaa ugu badan xagga reer guraaga. xagga beeraleydana waxaa ugu badan waxa lagu beera xoolo beer daaqay iyo beerta oo xaduudida lagu murmo ayaa ugu badan. soomaalida oo u muuqata bulsho dagaal iyo shiddo badan marka dhaqanka adeegta ma isdhihi kartaa nabad baa ka maqan jirto soomaalida nabad raadis bay nabad bay lahayd? marka hore aan dib kuugu celiyo intaan garsoor la gaarin waxaa ka horeeya in dhib dhaco oo xeer laga dejiyo. waa tahay haddii dhiigdaata dhabaqa meel beesha yaalay waa tahay 20 sano ka hor haddaad maskaxaada u celiso dalkan reer galbeedkaan joogno sharciga la yidhaahdo war on terror ama yani la dagaalanka argixisada ereygaas kama jirin. waa tahay maantana sharcigaa loo sameeyey la dagaalanka argixisada wax la yidhaahdo xabsiga gaara loo sameeyey maxkamada gaar hay-ada gaara loo sameeyey. dhibku markuu dhaco ayaa xeer la dejiya kabacdi garsoor ka dhashaa. soomaalidu dadkaas ayay lamid tahay waxa ay dhaqato ayay xeer ka samaysataa iyo siday ku xaliso. waxa ugu weyn oo dhib dhaca waa qof bini aadamahoo la dilo. waxa ugu yar waa sac beer daaqay soomaalidu xeer bay ka leedahay. laakiin saan ogsoonaa soomaalidu xeer ka badan doofaar beer daaqay markii doofaarka ma dhaqato. malaha waxaan filayaa reer galbeedka hadii la yimaado doofaar dhib u geystay inuu xeer leeyahay doofaarka dad baa iska leedahay annaga dad ma lahan. waxaa soomaalidu ku dhaqanto xeerka ka dhasha marna waxaa lala aadaa xagga shareecada islaamka marna waxaa lala aadaa xeer dhaqan dusha laga xafidsan yahay oo odayaalku dejiyeen. midka shareecada lala aado waxaa kamid a furiinka guurka iyo qof la dilay oo qofkii dilay la oqoo waayo. misala haddii qof la dilo oo qabiilkii dila la yaqaano qabiilka xeer bay leeyihin mag bay kala qaataan. laakiin mar qofkii la oqoo waayo shareecay tagtaa konton dheer madax saasa. midda garsoorka culummada waxaa mararka qaarkood waxaa garnaqa culummada cilmi fiqiga taqaana. waxaa laga bilaabaa nin sheegta nin lagu sheegto shahaado markhaatiya sheekhu xukuma sharkama taliya fuliya 5 qodob haddaysan heli ma socdo. waa tahay marka cilmi fiqiga ayaa kutubada iyo axaadiista iyo aayadaha yani la eega marka taas ayay ku salaysanta. marka xagga xeer dhaqanka ay timaadna odayaal ayaa ka garnaqa. odayaashuna waxay ku garnaqaan xeerka ab laga soo gaarahay walow markaa dambe laftiisu wadaadku ku lamaansan yahay
oo garta ou tilmaamo wixii shareecada khilaafsan oo gefa ou tilmaamo. waa tahay waxaad soo qaaday soomaalidu doofaarka xeer kama leh dal maanta dunida jira oo waxaa ku nool wuxuu doonaba ha ahaadee aan xeer lahayn adduunyada inuu ka jiro ma u malanaysa waa soomaalida ahay waxaan kuu sheegay in hawshu ka bilaabato nin sheegta nin lagu sheegto shahaado markhaatiya sheekh xukumay sharkamanta bolivia saca markuu beer daaqo waa la xirtaa dad baa iskale qoys baa leh oo dhibta u geysta laga rabaa laakiin doofaarka dhibta u geysta laga rabaa ilaa doofaarka xuquuqu qaranka ku leeyahay dalka ku leeyahay marka dawladdu waa inay mas'uul ka noqotaa xeer cidi kale wilaad badan lama hayo waaya geedka garta lagu qaadaa muxuu kaga duwan yahay maxkamadaha maanta jira oo garsoorka oo garta lagu qaado maxkamadaha caalamiga ayuu la mid yahay ama waa kasii caalamisan yahay waa tahay maxkamadaha caalamiga waxaa ku qoran sad ogsoon tahay miiska waxaa ku xardhan miisaan miisaanka waxaa ku qoran law is equal to all shareecada waa loo siman yahay annaka miis xardhan iyo daar dhisan ma aanaan lahayn waa tahay geed baa garta lagu qaadaa geed la waabay hargawaalis lagu goglay dhambal mariin iyo daabacle lagu goglay odayaal fadhiyaan ayay garta lagu qaadaa laakiin low is equal to all ayaa ka jiro masalan geesta waqooyi haddaan kuu soo qaado waxaa garta laga bilaabaa oo beesha ciise ka bilaado geesta waqooyi soomaali degta dadku wada ciiso nina caarad ma dheera ergaas wuxuu ka dhigaya low is equal to all dadku wada ciiso nina caarad ma dheera oo ninka ciise ugu sarreeya iyo ninka ugu hooseeya geedka garta inay hadday yimaadeen kala garbaxaan xaq baa loo leeyahay geesta koonfur haddaan tago oo sii koonfure ayadana garta waxaa laga bilaaba marka la furaayo nin gefay ma weyna nin gefay ma weyna macno badan bay leedahay horta marka hadduu gefay xilkas maaha mas-uul maaha marka labaad waxay macno kale leedahayo marka nin wasiira dembi lagu qaado ee shabaqa maxaabiista la geliyo wasiirnimadu waa ka baxa ma weyna marka nin gefay ma weyna ayaa layahay geedkaa garsoorkaan leenahay faqiir iyo taajir laandheere laangaab nin gobay nin kale intaba waa loo siban yahay in garsoor cadaalad uu ka helo geedka suugaan badan baa lagu sharaa maxkamadeena mid kamid ah abwaan cabdiqaadir xasan allah u naxariistay wuxuu yidhi geed baa la waabaa gogol baa la fidiyaa gurti lagu casuumaa gar kastoo adayg badan way tala gorfeeyaan go-aankoodu waa xeer dhibta soo gunaanada marka dhiig la kala galo daqarkiiyo qurgooyada culummada garsoorkiiyo diintay u gudubtaa xaqaa lagu guddoonshaa geedkii maxkamadda soomaliya ninkaasaa tilmaamay marka maxkamadda soomaalida iyo maxkamadda caalamku isla miday ahay waayahay marka qof dacwo qabo geedka garta ama golaha garta ma isagaa toos u taga mise hanaan uu maray oo loo mari jiray baa jiray ha hanaan baa jiro waxaa leeyahay laba qofoodba ma gefaan nin dhulka gamay iyo nin keligii gar qaatay ma gefaan waa tahay marka qofku wax tirsanayo keligii uu isla gar leeyahay dadka eheladiisa ayuu u yeertaa war arrinta geedweyn intadan geedyaraa la tagaa geedyaraa lasii tagaa talada lagu gorfeeyaa war wax aan wadanaa gar ma yihiin odayaal ma la horgeyi karaa xeerbeegti ma la horgeyi karaa mase annakaa gar daran markii taladaa la gorfeeyo ayaa waxaa la gartaa in arrinta layska dhaafo oysan shir la tegi karin iyo in geedka weyn la geyi karo marka geedweyne intaan la tegin geedyaraa gartaada lagu naqdaale waa tahay inkastoo ay soo kordheen waxyaabo fara badan oo markii hore dhaqanka soomaalida haatan ku cusub aan hore u jiri jirin intee qaybood baa garta soomaalida waayihii hore loo kala saari jiray laba nuuca loo kala saara gar sokeeye gar cadaawo waa tahay gar sokeeye waa midda dhex marta laba nimoo ilmo adeer laba qofood ilmo adeera ama laba qoysoo isku jufaa arrintooda jufo hoosaadkaa gala badanaa hadalka lama taagtaago waxaa lagu furaa mire berde duuduub baa loo laqaa gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa faataxo iyo afarta faataxo iyo gondaqabsi iyo xaalmarin iyo subayn xir iyo garab salaax si fududo qabow oo miyir qabtaa loo dhameeyaa waa gar sokeeye gar cadaawe saddex magacay leedahay gar nacley gar cadaawe jilib caro looma kala kaco waa midda dhex marta laba beelood oo deeg ahaan kala fog dhalash ahaan kala fog gartaa waxaa gala ragga loo yaqaano garnacleya ku caana dad waxaa jira ragga kamida oo garta soke aan lagu dirin kheyr kama taliilaya waa sharka taliya gar canaadiya marka ninka garcanaadka oo yani aan laga jid helin oo soo taagan ayaa gartaa loo xulaa ninkaas wuxuu ka dhigan yahay aftahamka maxkamadaha haddan adduunya markaan fiirino ninka solicitorka warqadau diyaariya laakiin marka maxkamadda la tegaayo baristarkiisii nin la yidhaha ayaa
dooda prosecution waa nin aqoon sharciga u leh haddana aftahana waa hibe eeba bixiyo marka ninka gartaa loo diraayo waa inuu aftaham yahay afreeda yaqaanaa axaadiista wax ka yaqaanaa xeerka wax ka yaqaanaa yani aan bahalka wax daafici karaa oo meel cida dadka mari karaa oo dadka duudsii karaa jid jidaraba ninkaas bahalka le garcadaawo gaal xeer beegtidii soomaalidu maxay ka dhignayd marka la barbardhigo waktiga hadda la joogo maxaase lagu xuli jiray oo see loo xuli jiray sifada lagu xulan jiray xeer beegtidii soomaalidu qarniyaal ka hor bay lahayd xeer beegto juuri ayay ka dhiganta marka mise maxkamadahan la fiiriyo juuri ayay ka dhiganta juurigaas guddiga garsoorka la yidhaahdo markaad fiiriso taarikhda ingiriiska waxaa xulay soo sheerciyey boqorada joogta awoogeedii labaad Edward 7 ninka la yidhahdo boqorkii Edwardkii 7 annakana qarniyaal ka hor ayaan juurigaa lahayn marka odayaashu ay garta galaan oo labada qolo la dhegeysto ayaa waxaa la xulaa xeer beegti tira isdheera 15 13 11 9 7 xeer beegtigaa la xulaa markii la xulo dibadday u baxaan waxay hadal ku bilaabaan allow aqoon darre ha noo cafin ha nagu cadaabin eexna ha noo cafin guddigaasi markay talada gorfeeyaan oo ka baaraan degaan oo sharciga yiil fiiriyaan oo diinta islaamka fiiriyaan oo dhinac walba fiiriyaan waxay bahalka la yidhaahdo talada markay gorfeeyaan ninka ugu codkarsan guddi geedkay kusoo noqdaan ninka ugu codkarsan ayaa wuxuu jeediyaa hadalka jeediya wuxuu ku bilaabaa wixii lala foqo fagaaraha la keenaa wuxuu ku harqabsadaa murtida odhanaysa gar go-aan baa lagu xalaaleeyaa go-aan gar baa lagu xalaaleeyaa xoolo goorac baa lagu xalaaleeyaa galeyna beeg baa lagu xalaaleeyaa arrintana loo xil saaray ee labada hebel iyo hebel ka dhexaysay ama labada bilood ka dhexaysay aan isla garanay sida noocaasa ee labada qoloba raalliha ku noqdeen guddigaa la xulaayo waxaa shardi ah 4 qofood inay ka mid yihiin shardabaal odaya in miir qaba oo sharta aan ka talin oo wanaaga ka taliya shiikh caalima shaacir abwaana hantila deeqsiya waxaa leeyahay bulsho wax u arrimiya ninkii u anfacaroon haddii adiga masalan aada abaal igu leedahay ood sanadkii hore marka rati uga garbabeela aad rati isiisay ood garta ku jirto teera waa kii sanadkii hore abaartii hore ratiga ku siiye warkiisa diidin waa inaa isdhihi waa xurmaynaysaa marka hantila deeqsiya inuu ku jiro garta waa muhiim oday shardabaala inuu ku jiro maxaa loo yidhahda af wuxuna xishoowey maya waa inaad nin yani bulshada heybadla usoo kala joogsanayso bulshada ninku anfaxroon oo arrimiyaa la yidhi ninkan warka hantida leh warkiisa waa la maqlaa waa international soo ma garan ninka hantida leh hadalkiisa waa la maqlayaa qiimo u leeyahay marka xeer beegtiga saasaa loo xuli jiray xeer beegtaa la xuli jiray gabayo badan baa laga tiri sayid maxamed abdilxasan wuxuu yihi shir aween waayeel abiymatala ashaayowday idajiiq albaaba iskuna eed la bixin waaye xaajada afarha duubatee loo almami waaye nin aqoon la aw iyo haddii odaya loo geeyo inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaas ka arrisha caaqil soo maaha arrinta isla bixin waaye ninkii maalinta ka caaqil soo maaha cabdulla raag wuxuu yidhi daqarkii dharbaaxyada iyo qadafka daandaansi daanta danaanada qof loo dilo iyo dulinka laysmaago dagaal weligii waa jiri jiray qoladii soo duusha markii gurtu heshiis damaada ee dooda lagu xiiqo waxaa dibadda loo saari jiray madalku daynoobe doodaagu hadalkuu yidhah docma dhaafayne isagay go-aanku deji uga dambeeyeene inaan xeel da-weyn leenahaan cidina diidayne inaan xeel ereyga tuduca leh waxaa dibadda loo saari jiray madalku daynoobe macno weyn oo xambaarsan yahay macno u xambaarsan waxa weeye waxaa dadku ku kala baxaa magac ku daynow muuqu daynow madalku dayno mar magacaaga ku daymoodaa hiyo magac haddaa dayn ku gelaysaa magacaaga ku qaamoomaysaa marna madasha aad joogtaad ku qaamoomaysaa marna muuqaalkaagaad ku qaamoomaysaa waxaa la yidhi haddii nin yira waa kuma la yidhaah hadduu nin magac la yidhi wuxuu yidhaha waa hebel haddii nin magac la dhana waa ina hebel hadduu qoys magac la ka dhashana waa nin reer hebelah saddexaad midna haduu waa sumadlaawo lalama macaamilo waa sumadlaawo saddexaadoo midna oran waayo sumadlaawo weya marka magac leh oo submad leh oo la yaqaano ayaa madalku dayno layaa dibadda loo saari jiray oo eedu qabato oo gartu qabato marka xigmadda ereyga cabdillah waxaa dibadda loo saari jiray madalku dayno waa erey culus meel loo dhan yahay nin ku dayo magaciisu ka sharaftiisa dhowranaya oo karaamadiisa dhowranaya xishoonaya waxay kaga haboon munaasabada yeelaya ayaa garta loo saari jiray mahana cidu baa lama saari jiray waa tahay
garta reer guuraaga iyo tembeeraleyda ee dhaqanka Soomaalidu maxay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen garta reer guuraagu waxaa dagaalkoodu ka curtaa ayata gartu dowladda qolo geel ka curtaa qolana beer buu ka curtaa waata gabdhaha way isaga mid waata masalan haddii yani gabdhaha way isaga mid dhoobey garteeda xooluhu waxay ku bilowdaa oo dhibaatada ka dhacdaa xoolo beer daaqay waata dacarsii mushkilad loo yihaah gabar la tegey la baxay ama la masaafaysta xoolaha beerta daaqay reer dhoobey waa dad miir badan beeraleydu oo xoola dhaqatada kamiir roon kana degan masalan buulo xoofto iyo bowda qaawis iyo xoogaa indhasarcaad asraar iyo indhasarcaad iyo sixir lagu lamaaniyey ayaa dagaalkoodu halka la yidhaha u badan yahay waran iyo xabadii ma jirto wuxuu ka bilowday ninkii balaada herboodka u qoriyeysta dooradaada iga cesho dagaal dhoobey kama horeeyo waa garta xoolaha beer daaqay laba habaa loo kala xukumaa waata haddii ninku uu beertiisa baylihiyo bood adag u dhigan waayo wixii ka khasaaray asagay jirta qaab baa loo xukumaa ninka beeraleydaha gardar haddii xoolaha nin kale oo xoolihiis ilaalin waayo ama habeen beer daaqaan habeenka uu celin waayo asagaa ninka xooleyda waa hurdaay habeenkii iyo baa ninka xoola inuu xiro u ato xareeyaa la rabaa sida badan garta waxaa lagu xukumaa wixii dhacay ninka xoolaha marka beertu ma socotay xoolaha socdaa la yidhaha waata dhoobey waxaa ka jirta mushkilad geela lamid ah oo la yidhaha dacarsiib waata dacarsiib waa mushkiladda ugu badan ay reer dhoobey ku diraan iyo beeraleydu maxay tahay dacarsiib beerta xadiid udhexaysa 5 tallaaba loo dhexaysiyaa geed dacar la yidhaah oo taqaano ayaa lagu beeraa ama xaskul ama yani geed abaaraad aan qalalay nool ayaa lagu tallaala geedkaas wuxuu ka dhigan yahay xaduudii 2 beerood udhexaysay marmar baa nin nuudiya oo xalaashi xaalanta inta habeenkii soo gudo oo dacartiisii baa si muran loo geliyo xaduudda beerteeda muran dagaal baa ka dhasha odayaal baa ku soo baxa dacarsiib mushkiladda liyaa waa midda ugu ballaaran ee beeraha dhowe lagu dirdo haddii odayaal kusu yimaadeen waxaa la yidhaha sohdin hadday wareerto sokeeye habaraa loo celiyaa sokeeye habara ayaa loo celiya habar baa loo celiyaa maya habar waa meeshii wax laga siibay dadka hooyo ka soo askumaa wax walba meqooya ka yimaadeen meeshii geedka laga siiba hooya markii muranku uu sii dheeraado ninka gardarada ku daato waxaa lagu xukumaa ganaax la yidhaha biyoqub biyoqub macnihiis waxaa weeyaan ninkii la ganaaxay oo muhdiga habeenkii soo guday oo beerta carteeda siibay oo dhibaatada mushkilada dhaliyay oo dadka isku dilay waxaa lagu xukumaa inuu odayaal baa gurigiisa duldega inuu neef ariya qalo inuu bunsharuur sixin la keeno inuu misega macsara lagu goosaaray keeno inuu caano geel keeno inuu shaah keeno inuu gacantiisa ku kariyo ku qaybiyo xukun adag wey biyoqub marka loo bay ninkii xaaska hataa in la karisa looma ogola maalintii biyo dhaamis weel dhaqiis cunto karis weyse keenid marka maalintii hore biyo uu qasaya sooma biyoqub baa la yidhaha waa la canaadaya ganaaxaasaa la dul saaraa markii ganaaxa la dul saaro haddii uu mar labaad gifo neefka ariga neef lo aha lagu bedelaa mar saddexaad neef geelaa lagu bedelaa laakiin taas ma gaarto ilma adeertiya garduub u qabto waa midaas bahalka liyaa midda oo neef lo ay arrintu ma gaarto intii qabadahayba tolki baa garduub u xiraaya joog dhahaya yaan lagaga darin gabdhaha dhoobey la saafaysto iyo gabdhaha la tago ama la baxsado yani reer guraaga farqi yar ayaa u dhexeeya walow dadka soomaalida ay gabdha on ku diraan gabadha dhoobey marka lala tago waxaa la soo celiyaa dharkii gabadha iyo xaal 5 qodob ka kooban 5 shay horta dhar gabadha la soo celiya wuxuu macano ka yahay in gabadhii dhar cusub loo iibiyey si wanaagsan loo aroosay xididtinimo wanaagsan jirto oo xaaladu fiican tahay oo miyir qaba ayuu ka dhigan yahay waxaa la ganaaxa 5 shooma ka kooban dhuumo xagga reer guraaga gabaatay ka dhiganta mooradhac qoyskii gabadha lagala tegey ayaa la siiyaa gaashaansiib dhalinyaradii barbaar tahay oo gabadha xoogaa fiirfiiri jirto waxaa macsaneed ayaa la siiyaa qada loo kariyo oo ishooda loo bilaaya looga xijaaba gaashaansiib baa la yidhaha mindumis haddii gabadhu doonanayd
yani guri dhismi lahay oo dumiye min dumisa lagu xukumaa haddii labadaas arrintu ay ka tagto oo ninku intaa xeerkaasoo mari waayo xumaan bay faraha la gashaa gar bay faraha la gashaa dagaal bay faraha la gashaa qoyskii gabadha dhalay gabadhiiu doontee xoog buu kusoo dhacsadaa gabdhuhu saad ogsoon dumarku gabar tima tidcan waa gabar dhiyaan doona mid gabar shaashlana waa mid la qabo meel udhexaysaa gabadha la keenaa marka lasoo wado timaha laga joof wax layaa loo xiiraa taalo joof marka joof gabar loo xiiray waa meeshii xumaanta ugu dambeysay soomaga meeshii xumaanta ugu dambeysay meeshii xumaanta ugu dambeysay weeyaan marka taasi dagaal kama dambeeyo marka waxa weye in laysku rogmado odayaalku sida dhoowey badan aan ku arkay 94 maraan dhaqankan dhoowey wax kasoo qoraayey allah caafimaad si axmed cabdigaashaan ayaa i raacay degmooyinkan soo marnay waxaa lii sheegay intaa soo jufo oo walaalaa oon kala guursan oo markii guurku xumaaday oo guurkii lagu dhibaatooday laysla gartay inaysan mar dambe isguursan si dhiig loo baajiyo gabdhaha marka colaadoodu dhaqanka soomaalida waa ku badan tahay gabdhaha marka jooga reer soomaaliyeed marka lala tago ama lala baxsado dhibaatada ka dhacda ayaan iyadana ku macnay doonaa soomaalidu horta gabar in bini aadamka waxaa leeyihi sidiisaba dagaalku bini aadamku la dhashay waata bini aadamka oo 6 qof isdilay aadan iyo caruurta aaday xaawo habiil qablada wiil labadii gabdhood ku matansan ay ku 6 isdilay waxayna isku dileen naag adduunka dagaal ka socda wuxuu ugu horeeyay lagu diray naag bay hadda taqaano deera dalka ruushka laga helo geesa shaqada aqal ka saar maartay midda badi geesa malahan midka lab oo meelka ayaa geesa leh ugaartoodan waxaa la labka geesa xoolaha badi soo ma garan markii ay ku diraan dheerada didig geesay isla galaan lama kala bixi karo isku baqtiya laba rati iscunay hadal hal bay ku dirsay laba dibiyo isu diyaanaysta arta sac bay ku dirsay dadkuna naag buu badan ku dirsay haween buu ku dirsay Soomaalidu dadkaas kamid too gabdhaha ayaa dagaalka ugu badanay ka dhaca oo ah gabar la faraxumeeyay mid la daqray dumaal diidan mid la tagay gabdhihii dhoobay marada waa la soo celiyaa ma ku yiri gabdhaha reer guraaga marka la tagaayo ama la masaafeysanayo la baxo waxa weeyaan galabtii ay ariga la joogto in la baxsado lama ogol marka arig weer baa cunay dhaqan ma markii ariga keento oo la soo seexdo gogashii ay seexatay inuu dhar cusub u yimaado oo dhar kale gogasha la dhiga dhaqan qalab saar baa leeyahay markii gabadhii la masaafeysto oo la soo mehersado haddii nin caadi dhalana waa laga macaamilaa laakiin wadaad lagama gar helo waxaa la midiyo oo ku qashay qandi oo ku shubtay iyo qiil u bani asagaalaho haddii gabadha wadaad dhalay gabadha 4 cabaar oo 100 kilomitir laga meeriyaa masaafada markii meel xisii marayso ayuu meher culaad wax la yaasanaya nin kale ku meeriyaa marka dayrtii hore ninkaasi teeran dayrtii hore sii ulay wadaad laga majiyo Soomaaliya markuu ogaado inuu waayay inuu ku meerinaya meher culaad leeyahay laakiin ninka kale waa dhaqaaleeda gabadhu sideeda inay nin raacdo oo la baxsato oo la dhuumato aabaheeda mas'uulka ayada mas'uulka waxaa leeyahay inay aabaheeda saf dhaafto odowgu mar hantiba u xishaa geel baa la siiyaa oo gabadha inuu ninku qasbo keento marna mustaqbalkeeda ayuu ka fikiraa waxa la yiraahdaa naag ninkii dhali karaa dhaqi kara odowguna wuxuu ka fikiraa in odayo mas'uulo gabadha ka ah ayaan ku soo furino oo si inuu marka nin siiyo aanay rabin odaga kalif inay aabaheeda saf dhaafsan odayga wuxuu ku yiri gabadhiisii maan dhaay nin baan ku sii wanaagsan aaba ma xume ninka wanaagsan oo siisay 4 haday 4 iga daabay 4 haday 4 u tahay iga daa xiirasho haday xaraga u tahay iga daa xeydasho haday xoog u tahay iga daa xasab haday xigta u tahay iga daa xayriya haday xoolo u tahay iga daa erayga ugu dambeeya ku macnaa oo xasabo haday xigta u tahay iga daa qofku xagga aabe xigto ayaa leeyahay xagga hooyana xasabaa leeyahay ninku markaan uu qoys badan ka dhalan markuu hadii goolaale uu ku faano reer abtigi ma taqaana aniga waa hebel baa dhashay hebel baa reer rabtiya xaaska reer sidig waa xaaska ma taqaana arruurta abtiyaalku ma taqaana hebel weey oo tolka sheeg waayo
xasabo ayaa xigta u ah gabadhuna waxaa la yidhi raggu marka kuma maaha waxaa lagu xisaabtamaya colaad iyo colaad baa lagu xisaabtamaya difaac iyo waxbaa lagu xisaabtamaya dugsi waa ilma adeerta darafta kaasaa ku lagu joogta xisaabtamaya inaa wiilka welwelka gabadha hayaa kaa wiilkeeda welwel u qabta inaan wiilka ceelka lagu dharbaaxin oosan ilma adeer waayin ayay ku diidaneen Waata. waxaa jiray marka gabadhu dhaqan yaroo laga tegay aan kuu macneeye ayadoo ninka la heshiiso hasaawaha la gorfeeyo talada isla gorfeeyaan waxaa lagu gudaani jiray wacd wax la yidhaha wacdkaas waxaan filayaa inuu qabla islaam ahay islaamka hortiin uu jiro dhulkaas isku talaab lagu dhigi jiray isku tallaabtaas aa qofkii 3 goor ka boodi jiray wacd alla ku qabay wacd alla ku qabay wacd alla ku qabay marka wacdkaa la dhameeyo gabadhu geeda xag ka istaagaysay geedna sokay ka istaagaysay garbasaar inta sare dharka dhiganaysay nima adiga ahayn anuu qaawan arki maayo ka dhiganay dhaqa inay ballantaa ka baxdo oo waxaan suuragalahayn gabar la qaawiyey dhaqanka soomaalida macno badan bay ku leedahay gabar oo riya la joogto 12 jira ayaa libaax qaaday garabka ku dhigay intuu sii jiday garaarka u go'ay gabadhii qaawada libaax wataa nin geel wataa ka hor yimid xabada ku kiciyey waa ka reebay dhigjoojin uu sameeyey waa dhayey qoysiyo saaray markii miisto cidiisi u keenay waa ka tegey ninkii geeli soo goobtay gabadhi markii 20 sano garan gaar 8 sano kadib aniga lagu siiyay ninkii beriga aweegtay maxaa jira leeyahay ninkaas anoo qaawan arkay nin kale anoo qaawan arki maayo libaax uga maal haysee nin anoo qaawan ama arkay nin kale anoo qaawan arki maayo dhaqankaas ilaa marka gabdhuhu ballanta kana leeyihiin laakiin odaga ayaa kalifi jiray in gabadhu nin raacdo waaye dhaqanka Soomaalida garsoore xeelaliye iyo qareen yaa ka noqon jiray marka geedka la isugu yimaado oo geed baa la waaba guul baa la fiyo ku yiri harga weylaalista iyo dhambasha la dhigo mariinka daawaca leh annaka garta reer galbeedka marka qaalugeed waa loo istaagaa lagu galaa laguma geli jiray fadhi baa garta lagu geli jiray hawadiye ama shir gudoomiye ama hadal qaybiye ama kooshe wax la yiraahdo nin la yiraahdo la magacaabi jiray hadalku qaybin jiray qof baa marbo sii jiray hadalka in la iska daba yabo la yiraahdo lama ogola waxaa la ogolaa in marka hadalka siiyo hilbaa la wada hadal lama wadaago ninka ayaa bahalka la yiraahdo labada qoloo garta isu sheeganaysa yani iyo odayaalka u dhaxeeya hadalka u qaybin jiray marka kale ay xeer beet la saari jiray marka halkaas ayaa maxkamadeenu ku dhameed oo marna guddi ahayd marna si ahayd waayahay garsoorka Soomaalida ee dhaqanku laab la kac lurkeena sidee looga hortagi jiray marka xukun garsoorka la qasameynayo waxaa looga hortagi jiray caadifo manaha colaad dhasha oo fidma dhasha Soomaalida horta sideeda waxaa yani bariyahan aad loo balaayeeyaa in Soomaalidu dad bilaa oo sharta jecel oo bilaaya ka dhacday inay tahay ayaa yani adduunyada saxaafadda yani faragelinta shay ay suurtaa Soomaalidu marka war dhiila la soo sheego horta sideeda Soomaalidu dad fidnada necab weeyaan allo coli abaarnaga haay allo colkay col ku furo allo nabad noo naadi ereydaas fiiri nabadba ubax nigaadi ubax nuuro leh يعني سيدا نوعاسا بلايا مدح لقبتي مسكربتين في النهو مدن لما توسيو لابلاك على الربا كدشا يعني إن وحا الله بصوه oo laga miirsi miir qabto loo wajaho oo laga hortagin ayaan dhaqan u lahayn dad dagaal iyo fidnada reer galbeedka yani adduunka saxaafadda iyo faragelinta dad dugaaga iscunaya ma aanan ahayn afka baalka le waa war beriyaha la keenay arbay la mid tahay sida hadda kulligeed heesa jacayl u wada qaadayno isuna dilayno saas la mid armay ahayd iyada maya si wanaagsan tusaale kale hadaan ku siiyo haweenka Soomaaliyeed duca qaasa oo rag ka qayb galay hataa wiil laba jir uu ka qayb galay saa ogsoontahay ducadaas waqooyi waxaa laga yiraa baacad iyo taraare koonfurna waxaa laga yiraa salool balad iyo madax shub abo taxaawi abay faado rasuul Allah xusa marka xuskaasu dhamaado salool baa hareeraha loo fadhiya shaar guudban shaydan xijaaban balay ugu xijaabay islaanta ugu weyn ayaa duceysa waxay ku duceysaa bilaayada hoose radeeban bilaayada sare raaran midda hareertu riixan midda dambe reeban midda hore rooran yani bilaayo dhan meel ay ka timaan laga duceystaa sida noocaasa ayaan u lahayn dad fidnada hor orda dad bilaayada waa wara yiraa maahan sidana la kusuntahay maanta maahayn waayahay xeer qorani ma jirin marka dadka maxaa lagu kala saari jiray mar waxaa ku sheego shareecada lagu kala saari jiray marna xeer dhaqan dadku xafidsiyo ab laga soo gaaraha lagu xafidi jiray
xeer dhaqankaa laftiisa guddiga la saaray waxaan kuu sheegay yani shardabaad odaya sheikh muftiya shiiku mar walba waa jooga kaalin buu lahay waa tahay marka xeer dhaqankii noo qoraay shareecada la waafajinayo waa tahay xeer dhaqankaa noo qoran mid la xafidsan yahay ayuu ahay oo abka laga soo gaaro marka la yidhaha hadday ugu tahay markaa xeer laga dejinayo waayahay dhibaatada ama qofka dhibanaha ah yaan gartiisa golaha ka difaacan karin garsoorka soomaalida muxuu u ogolaa wuxuu u ogolaa cid difaacda ma u ogolaa haa horta sideeda marka yani bahalka la yidhaahdo la eeda la tirsanaayo ragga xagga aftahamnimada afraa loo kala saaraa waa tahay nin kasta oo kara nin kara oon kasin nin kasta oo kara niman kasinoo karin afar baa loo kala saaraa waa tahay nin hadalka ninaan karinoo kasuu noqon kara nin hadalka macnihiisa waana karaa waana kasaa waa tahay nina waa kara laakiin waa tan oga macnaha ma kaso waa tahay nina waa kasaa ma sakaro waa doobagore waa garta nina maba kaso walaa hulaa eber bahalka la yidhahdo labana kaso mana karo waa garta ninkaas waxaa loo ogolaay inuu qareen igmado oo qof wakiishaa loo ogolaay jujuub ma jirin waa tahay yani bahalka la yidhaahdo jujuub ma jirin laakiin aan kuu sheegay waxaan ku yidhi garnacleyda dadka loo saaro ayaa waxay ahaayeen yani dad yani Garta beesha cadaawe, garta u xulan, cadaawe. garta cadaawe dad beesha u xulan oo odayaalo la yaqaano oo garta bahalka la yidhahdo masalan haddaan gartaa kuu sheego ood ogolaato gar cadaawe gar cadaawe marka ragga gelaya sideeda islaam baan dhaqan baan lahay dadku xalaal cunu ahay waxaa fiican in faatixada la qaato in laysu turo oon laysku talax tegin ninka cadkiisa goosta oo ragga ah oo garnacleed aada u yaqaanaan rag iyo dumar mid dumarka ku jiraa aaya kama tago nin baa beri diye qolo lagu yeeshay diyadii markii keen la yiri nin garnacleed aada u yaqaanana diyada geela noo dhaafa geel waa qaaliya riya keena ceesaama keenoy meeshii karta looga sugayay sanadka mar roobdo inuu 100 halaad keeno ayuu 100 ceesaamood keena riya xagee u wadaaba lay riyu geela waa ka wanaagsan yahay laba ragay la wadaagtaa haarka iyo hareedka laba farday la wadaag gudaka gooha laba geelay la wadaagtaa qatanka qaroomaysiga laba looday la wadaagtaa labada gees iyo labaca laba haweenkii la wadaagtaa labada naas ee laab jileeca laba way dheer tahay laba sano way ku curataa laba laaka way iska sidaa laba jir waa kaa siixisaa hal saac markuu labadii waday geeli meeshu geel bixin laba ariga ku ariga oo ku amaantay markaasaa la yidhi fishka laga yidhi laba aan isgey faraca kaarta labo aan isgey faraca kaarta ha laba badanaa ninku laba badanaa laba aan isgey faraca kaarta le ninkaas markuu warkaa leeyahay 250 sano meel 250 sano taqriiban laga joogaa 8 faca laga joogaa ilaa hadda waxaa lii sheegay markaan jufadiisii warsaday in laba wiil eedida ka jooga mar walba oo laba aan iska faraciisa ka joogto marka waxa weeye arrintu carabkiisa bogto cimrigiisa ma bogto abba nacam halka marka gabay baa laga tiri wuxuu yidhi caku badan dadkeedii hore loogu rogay ciide farci dila ciddii ku cimirsaan caafimaad kaliina gantaalaha kuruuska la isku rido annaka fartaa noo ahayd farci dila ninkuu ku cimirsaan ciddii heli aan caafimaad kaliina roobkan faraha ciidaha laguma taagan laguma taago farci dile fartan ciddida markii asaas lagu yiraa caku lagu yiraa gantaala ka dhigantaha waxaa la sheegay sayid maxamed cabdulla xasan wixii gabay loo soo tiriyey inta badan gabay uga jawaab hal gabay mooyaane nin cali jaamac dhihi jiray oo gabyaa khatara ahay ayaa gabay usoo tiriyey dhowr gabayd hal mid kamid ah wuxuu yidhi antumaatiya wadaadka murtaad igu tuhmayseene sayid gabayga waa ka jawaab waaye daraawiisha u yeero goor maqriba ayuu xagga berbere farta u fiiqo lagu tumaati ilaa 3 casho noolaaya lagu yiri ninkii farta cidida leh waa qatar lagu tumaati soo ma garan halkaa markay marayso haddii garta qof dumara ay qayb ka tahay oo dagaalku u yeeraan ayadoo hagoogan oo hoos eegeysa haddii ay tiri adduunka rab iyo rag baa ka taliya wixii laisoo qabo ogolah oo dagaalku waa farxaan waa u duceeyaan warase fiican la kusii gabadhaasi awlaad wanaagsan bay dhashaa farax fiican bay ka tagtaa loo duceey geedka shir looga duceeyey sidan habaarka waxaa leeyahay laba u kala baxaa suga iyo salkiciye suga waa waalidka habaar ku habaaro adduun aqrabada waa ku suga salkiciyana waxaa la yidhaha midka geed shir qofka laga habaaro waa salkaca geed shir marka laga habaaro waa salkaca gabadha laakiin inta marada dhexda ku xidhata baraanburta gabayda
heesta mahmaahda sidii qaran halkaana qodob dheh halkaan qodob dheh oo bismillaahi raxmaan raxiim afku ereleydan waa maxay bismillaahi marka la yidhaahdo gabadhaasi qayr kuma dambaysay ijaabo oo odayaalku marka ugu dambaysana waxbaa lagu habaaraa habaarka uu khatarsanoo bilis xaawale lagu habaaro oo labada af iyo adinkaba ka waalo ayaa la haddii markii habaarka u dhammaaday labada adin iyo afkaba ka waalo waa habaarka bilis xaawale ugu dambeeyo lagu habaaro gabadhaasi waxaa la yidhi garyaqaan dumar ee gabyaalo aad midna gola ma buuxiyaan naagto garyaqaanka ee dooda ubad fiican ma dhasho garyaqaan dumar iyo gabyaalo aad midna gola ma buuxiyaan marka lo-da lasoo horo sacgees u baxa oo adinka dhul ku faaga oo muusig yeeriyaa jira habaarqab waa noo gabiy biyo hormariya habaarqab waa noo gabiy biyo hormariya weyle ma dhalo islaantas garnacleyda taqaana een faatixada qaadan ee muranta ereleyda na ayadoo ma fiican nin baa wuxuu yidhi midda labada fiid qaysa qumayo weeyaane qalbiga waa necbihay gu soo qaado yani waxaa la yidhi naagaha midda ereleyda iyo midda golgolaaf midda ereleyda midda golgoldaaf taqaana fiican la yidhi nin baa islaantiisa ugu ereysa isagoo salaad maqrib dukanaya ay tag ku tiri marka naintaa dukanaa ma ii kaadi weyse ilaahu bari wuxuu yidhi ilaahu ama heblaya codka ku celi ama aniga dhegaha tirsaana isoo maqan yani islaanta oo ereleyda wanaag kuma dambayso ninka garnacleyda yaqaana wanaag kuma dambayso waayahay garsi gari laba nin kama wada qosliso laba garoodse waa iska feer dhashaan maxaa dhaqanka soomaalidu ama garsoorka soomaalida uga jeedaa waa sahlan tahay horta marka xakun dhaco aftareen aysantis noorida aysi duwi ma ahay basaamsa yani qofka marka go-aan dhaco go-aanku laba qofood kama wada farxiyo waa gari laba qofood kama wada qosliso ha qofna waa ku farxa qofna waa ka naxaa kii loo xukumay gar helay taas midaas laba bilood iskama feerfishaan laba galood iska feer dhalataa waxaa suuragala anugu war gara inaan ku doodo adiga aan yadda ku haystana aada gartii yani iska difaacdo ood war gara la timaado oo dadkii aada qanciso labadii garood ay iska feer bishaan maxaa markaa xala waxaa xala in arintaas loo saaro haddii waxaan isku haysanaa wax laysku dafirsan yahay oo adiguna aada difaacday oo difaaci dadkaa ku qancisay anna aan sheegtay haddii saa noqon weyse ay noqotay waa in shareecada dib loogu celiyaa oo axkaamta dib looga baara waayahay garsoor dhaqameedku si cadaaladda loo ilaaliyo muxuu ka qabaa xigto iyo xigaalo markhaanti u qabsadka xigto iyo xigaalo wax dadka saas loo yaqaano qaraabada dhow xididka ama markhaatiga kama qeybgeli karin odayaal kama qeybgeli karin xeerbeegti kama qeybgeli karin waxaa kamid a dadkaas aan ka qeybgeli karin ninka la yidhaahdo xigtadaada xasadaada lugjiid iyo naasjiid wax loo yaqaano ninka walaashaa qaba waa lugjiid ninka walaashaa ay dhashana waa naasjiid looma ogolo inuu ka qeyb galo qaabka garsoorka dhaqanka soomaalida lahaan jiray raxfaan ma lahayn raxfaan ma laha xagee loo qaadan jiray marka xukun dhaco raxfaan ma marka xaquuq aad ku qanci weydo laakiin aad cilad saxa keento yani dila saxa keento geed kalaa garta loo fariisan geed kale la aadi jiray garsoorka dhaqanku ma lahayn xabsiyo dadka lagu xiro marka xukun dhaco qofka gardiidka maxaa xeerka dhaqanku ka qabi qofka gardiidka marka hore ganax yara la saari jiray geed cayayaan laa lagu xiri jiray hadduu sii madax adeego afar la gembiyo ama afar la gooyaa lagu xukumi jira afar la gembiyo waxbaa ratiga u dhaansan in laga qalo oo afartii haamood la gembiyo ama hashaw carruurta umaa laga gowraco oo afartii naas la gooyo beeraha maxaa iyada uga xeeraha markaas beerta dadka beeraleyda waa kuu sheeg biyo qub ganaaxa la yidhaha waa kuu sheeg waata maxaa garsoorka soomaalida aada isleedahay waa burburiyey marka dhaqanka garsoorkii saas ahaa oo dhaqan maxaa burburiyey waxaa burburiyey markii gumaystayaalku dalka soo galeen lacag layaa maria thelaris ayaa la keena oon isleeyahay boqortooyada australia soomaalida lacagtaa shaaruq ayuu taqiina qaadiyaal baa la qoray qaadiyaalkii la qoray laaluush baa bilawday rish baa bilaabatay nin qaadiya ayaa gar si xun u xakumay subaxyaa loo yido war garta maxaa cuskaatay shanaa shan qabatay shan shaaruqan xala qaatay shanaa shan qabatay maalintaasa garsoorka soomaalida burbur waayahay marka dib u milicsato garsoor dhaqameedka soomaalida maxaad isleedahay wuu ka tari lahaa xaaladda maanta jirta oo dhibaatada jirta haddii lagu dhaqmi lahaa ogaasyadii saxda ahay oo dadka u duubnaa jiray iyo dhaqankaan lahayn markii dib loogu celiyo danaysiga faragelin shay laga baxo soomaalida wendhiga hal maalin ku heshii karta hal maalin ayay soomaalida ku heshii kartaa waa marka loo celiyo ogaasyadii sharafta lahay culumadii sharafta laheed
markii loo celiyo oo danaysiga iyo dowlad iyo yani faragelin shay laga bixiyo hadda saad ogsoontahay erey looma dhama la yidhaha sanadkaas soo kordhay markii koox ay heshiiso midaa looma dhama inta xoogaa lasoo looma dhama arrintaas looma dhama sooma garanin marka looma dhama laga saaro ee dhaqankeena dib loogu celiyo soomaalida asbuucay ku heshii kartaa waaya kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir cusmaan maxamuud oo loo yaqaano oroba. cabdulqaadir mahadsanid. intaa waxaa ku dhan barnaamijkeeni foolka fool tan iyo kulantideena dambena sidaa iyo nabadgelyo.